halkaad inaga daawanaysaan waa Laacib Sports oo had iyo goor idin soo gudbisa barnaamijyada xiisaha leh daawadayaal. waa barnaamij ka mid ah barnaamijyadii ay inaga codsadeen daawadayaasheena qiimiga badan ee ku xiran Laacib Sports. daawadayaal, barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa laacibka caanka ee Mesut Ozil. haddaba Mesut Ozil waxa uu dhashay 15 Oktoobar 1988. laacibkan waa laacib u dhashay dalkaasi Germany, balse asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa dalka Turkiga. inkastoo la sheego asal ahaan jinsiyadda uu kasoo jeedo Mesut Ozil in aysan Turkish ahayn ee ay tahay Kurdis, oo ah Kurdiyiinta la dagaalama dalkaasi Raashiya, dhulkoodana ay kala boobeen dalalka ay jaarka yihiin sida wadanka Syria iyo Ciraaq iyo Turkiya ayaa kala qaybsaday qowmiyadaasi. haddaba haddaynu sii gudagulnaa laacibka caanka ee Mesut Ozil iyo taariikhdiisa daawadayaal, laacibkan waxa uu ka mid yahay laacibiinta aadka dunida muctarifka uga. waxaa laacibkan lagu xasuustaa isagoo da'yar ayuu waxa uu ka mid noqday ciyaaryahanada kubadda ka sameeya khadka dhexe uguna caawinta badan marka ay noqoto dhanka farsamada. haddaba kalaabo badan ayuu soo maray, waxaana ka mid ah kalaabka Schalke 04 oo halkii uu kasoo baxay kadibna waxa uu u wareegay naadiga Werder Bremen ee isla dalkaasi Jarmalka isagoo ugu wareegay lacag adduun oo gaaraysa 5 milyan oo euro. haddaba sanadku markuu ahaa 2010 oo laga soo laabtay Euro 2008 iyo World Cup 2010 ayaa waxaa laacibkan soo raadiyay naadiga Real Madrid, inkastoo naadiyo badan ay wada raadinayeen sida ay saxaafada qoreen. Wayne Rooney ayaa waxa uu tababariyay naadiga Manchester United ee hore Sir Alex Ferguson uga sheekeeyay in loo keeno lagana garab ciyaarsiiyo Mesut Ozil. haddaba codsigaasi Sir Alex Ferguson waa uu ka aqbalay Wayne Rooney. ugu dambeynna waa la raadiyay, laakiin waxa uu gacanta u galay fariiqul muluk naadiga Real Madrid ee dalkaasi Spain, waxa ayna kula wareegeen 15 milyan oo euro. haddaba laacibkaasi markuu naadiga Real Madrid u wareegay goormay ahayd markii uu ciyaartii koowaad saftay sanadkii 2010 ayuu ciyaartii koowaad ku soo galay badal daqiiqadii 62 isagoo lagu bedelay laacibka reer Argentine ee Angel Di Maria ee haatan ka ciyaaray naadiga Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska. haddaba haddaynu soo qaadano 15 Sebtembar ee sanadkaasi waxa uu soo galay ciyaartiisii koowaad ee UEFA Champions League daqiiqadii 74 ayuu goolkiisii koowaad ee assistant waxa uu caawiyay laacibka kale ee reer Argentine ee xilligaasi afka hore uga ciyaaraya naadiga Real Madrid ee Gonzalo Higuain. haddaba laacibkan aynu sii wadna taariikhdiisii waqtiga uu ku sugnaa Real Madrid ee 3 Oktoobar 2010 ayuu waxaa laacibkan uu la ciyaaray naadiga Deportivo La Coruña. 6-1 ayay Real Madrid kaga adkaatay naadigaasi Deportivo La Coruña, waana ciyaartii koowaad ee uu gool u dhaliyay laacibkan. 22 December ayuu haddana Levante la ciyaaray 8-2 ayay Real Madrid kaga adkaatay, waana ciyaartii koowaad ee Copa del Rey. haddaba ciyaartii koowaad ee uu El Clasico gool dhaliyo goormay ahayd 14 Agosto 2011 ayay ahayd markii ay isugu imaadeen naadiga Barcelona iyo Real Madrid Super Cup-a Isbaanishka, waana uu ka geliyay shabaqa Barcelona, waana goolkiisii koowaad ee El Clasico diiwaanka u gala laacibka Mesut Ozil. sanadkaasi waxa uu ku soo gabagabeeyay 2010 25 assist oo ama 25 caawimaad ama 25 kubad sameyn oo uusan sameynin ciyaartoy qaaradda Yurub kubadda cagta ka ciyaara, waxaana uu rikoor cusub oo Mesut Ozil dhigay dhanka kubad sameynta marka ay noqoto. haddaba haddaynu taariikhdiisa koobneed ee Real Madrid intaasi aynu kaga soo wareegno 2013 ayuu u soo wareegay laacibkan naadiga Arsenal, waxaana sababay 2012 ayaa waxaa naadiga Real Madrid yimid Lucas Modric oo ahaa laacibka u dhashay dalkaasi Croatia kana yimid naadiga Tottenham ee dalkaasi Ingiriiska. ayaa waxa uu ka dareemay Mesut Ozil in laacib khadka dhexe uu yimid oo uu culays soo fuuli doono isaga sidoo uu ku heli lahaa Bosline ababa ama joogta uu ka helay naadiga Real Madrid. ciyaartoy badan oo ka mid ah ciyaartoyda Real Madrid ayaa markii uu ka tagay Mesut Ozil naadiga Real Madrid ka carooday, waxaana ka mid ah Cristiano Ronaldo. waxa uu sheegay in Mesut Ozil uu ahaa laacibka kaliya ee fahmi karay booska uu Cristiano Ronaldo imanayo si uu usoo baas qaato kubada badanna u dhigi jiray si uu goolal u dhaliyo Cristiano Ronaldo. wuxuu yiri arrintaasi maamulka Real Madrid ee uu hoggaanka ka yahay Valentino Perez aniga raalli kama ahi iibinta ay ka iibiyeen laacibka Mesut Ozil naadiga Arsenal. haddaba naadiga Arsenal ayuu yimid 2013 2 Sebtembar ayay ahayd markii ay si toos ah ula wareegtay oo ay kula wareegtay lacag gaaraysa 50 milyan oo euro. waxa uu noqday laacibka ugu qaalisanaa ee haysta dhalasha dalkaasi Germany amaba Almaaniya. haddaba laacibkan ayaa waxa uu sheegay ka tagista Real Madrid ka tagay inuu aad ugu xun yahay, uu jeclaa inuu cimrigiisa inta ka dhiman kubadda cagta intuu ciyaarayaba
uu garoonka Santiago Bernabeu ee naadiga Real Madrid uu sii joogo, balse uma aysan suurtagelin. haddaba ciyaartiisii koowaad waxa uu u saftay naadiga Arsenal. Sunderland ayay la ciyaareen 3-1 ayay kaga adkaadeen. muxuuse sameeyey ciyaartaasi Mesut Ozil? daqiiqadii 12aad ayaa gool jiiradu u dhaliyay Arsenal, isaga ayaa kubad farsamaysan u keenay, waana tan keentay in qulubta taageerayaasha Arsenal uu kasbado laacibka Mesut Ozil. haddaba haddaynu soo qaadno goolkii koowaad goormuu dhaliyay laacibkan, waxa uu ka dhaliyay naadiga Napoli ee ay la ciyaarayeen naadiga Arsenal UEFA Champions League ayuu ahaa. haddaba sidoo kale haddii aynu soo qaadano goolkiisa koowaad ee ah English Premier League, waxa uu ka dhaliyay naadiga Norwich City ee dalkaasi Ingiriiska ka dhisan 19 Oktoobar ayay ahayd 2013. haddaynu sii wadno taariikhdiisa dhanka Arsenal, waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu caawinta badan, isaga oo keenay caawintii ugu badnayd sanadku markuu ahaa 2015 isaga oo dhigay 26 assists. waxaana kaloo ka mid ah caawimaada uu sameeyey inuu dhigay rikoor cusub oo English Premier League uu ka dhigay 8 November 2015 6 assists oo isku xigta oo consecutive matches 6 ciyaar oo isku xigta laacib sameeyey 6 kubad samayn oo gool loo bedelay ma jirin, isaga ayaa dhigay waa Mesut Ozil. haddaba sanadku markuu ahaa 2016 ayuu ciyaartiisii boqolaad u saftay naadiga Arsenal oo 24 January 2016 iyadoo Arsenal ay kusoo beegantay naadiga aad ku xifaaltamaan ee Blues ee naadiga Chelsea ee waqooyiga London ka dhisan. haddabana aan iraahday naadigaasi ka dhisan wadada Fulham ee magaalada London. daawadayaal ka raali noqda qaladkaas yiri. haddaynu soo qaadano taariikhdiisa, asal ahaan ninkan waa nin ka soo jeeda qoys muslin, waxaana la sheegaa inuu yahay laacib diintiisa islaamka ku dhegan, waxaana la arkaa inta aysan ciyaarta bilaaban ka hor isaga oo akhrisanaya aayada qur-aana. oo waxa uu sheegay mar ay jariirad ka mid a jariiradaha kasoo baxa dalkaasi Germany ay wareysanayeen laacibka Mesut Ozil, waxa uu yiri ciyaartoyda waan u sheegaa oo way yaqaanaan markii aan ducaysanayo qur-aanka aan akhrisanayana cid ila hadli karta haba yaraatee ma jirto, la iima soo dhowaan karo, ciyaartoygu ii soo dhowaadana aniga ayuu igu xadgudbay iyo cibaadadii aan markaasi ku jiray. laacibkan mar la weydiiyay soonka, waxa uu sheegay in maalmaha fasaxa uu yahay uu soomo, mararka kalena uu soonka iska furo maadaama ciyaaro adag ay sugayaan, taasina ay keeni karta in loo baahan yahay aalamiinta badan si uu jirkiisa u dhismo oo ciyaartaasi natiijo looga gaaro. haddaynu soo qaadano dhanka xaaska iyo qoyskiisa, laacibkan waxa uu la saaxiibay gabadha la yiraahdo Mandy Cabristo oo ay saaxiibeen sanadka 2013 ilaa 14 ayay wada socdeen, kadibna dagaal ayaa dhexmaray oo ay kala hareen. 2015 ayaa haddana waxaa lagu arkay labadooda oo xaflad wada socda oo wada joogo oo isu loo cadeynaya. markii la weydiinay wuxuu yiri sheekadaasi waa ay dhamaatay oo aniga iyo Mandy waan heshiinay. balse sanadku markuu ahaa 2017 ayaa si toos ah waxa uu Mesut Ozil oo la saaxiibay gabadha Turkish ku dhalatay ee la yiraahdo Amina Gulzi ee modeliste caanka dalkaasi Turkiga iyo dunida daafeeda. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay laacibka caanka ee Mesut Ozil ee naadiga Arsenal ka ciyaaray dalkaasi Ingiriiska taariikhdiisa koobnayd. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. waxaad ka daawanayseen Laacib Sports oo markasta diyaar idin la inay idin soo gudbiso codsigiina iyo taariikhaha ciyaartoyda kubadda cagta dunida caanka ka ah. haddii aad ka mid ahayn asxaabta ku xiran Laacib Sports, fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartid si channelka asxaabta ku xiran aad uga mid noqotid.